kooxda kubadda la ciyaaraysa haddaad intaad ka badin kari weydo wax walba oo aad samayso oo tiraahdo ciyaartooyda haystaan gebigoodaba haddaan soo iibsana ka waran ood ciyaartooydii kasoo wada iibsato si aad iyaga ula tartanto haddana beritoole sheeko noocaasa waxa sameeyeen ninkan oo aad u taqaanaan Mark Zuckerberg ama waa ninkan iskale shirkadan Facebook ama Meta la yidhaahdo dhowaan ayaa horta sidaynu ogeynba dhowrkii sane u dambeysay waxa uu la tartamayay shirkadan la yidhaahdo OpenAI oo ay ku tartamayeen tartanka AI-ga iyo muxuu ahaayey artificial intelligence-ka waxaynu u naqaano marka waxa dhacday tartanka aad baa loogaga badiyey waana laga horeeyaa marka maalin dhowitoole ayaa waxa uu sameeyey waxa uu hire gareeyay amaba uu soo shaqaalaysiiyey 3 nin oo baarayaal ah amaba researchers ka ah shirkadda loo yaqaano OpenAI oo AI researchers ah oo shirkadda in badan u shaqeynaya khibrad badan leh ayuu soo hire gareeyay lacag cajiib ah ama qayru macquul ahna uu ugu ballan qaaday inuu compensation u siin karo amaba uu siin doono abaalmarin markuu sidaas sameeyey ayaa wiigii la soo dhaafay dhan dad badani ka sheekeeyeen macnaha social media haye internetka oo dhan intaasaa lagu hadalhayay kadibna waxa dhacday haddana mar labaad ayaa waxaa la sheegayaa shalay toole in uu bilaabay haddana inuu 4 shaqaale oo shirkadda lafteeda unu shaqeeya in uu haddana uu soo hire gareeyo oo uu dhammaan iyagana soo shukaansado ama uu soo kaxaysto si ay ugu soo biiraan teamkiisa super intelligent-ka waxa uu bixiyey muxuu ahaayey Meta marka ninkani sheekadu wuxuu kaga dhigay haddaad qofkaad is haysaan ka badin kari weydo si caadi fool uga badin kari weydo waa inaad filin kale la timaado oo maaragtay dhinac kale kasoo wareegto bal marka maxay idinla tahay ma idinla tahay inay dadkaa uu soo hire garaystay amaba uu soo shaqaalaysiiyey ay wax ka tari doonaan amaba tartanka AI-ga ee lagu jira ay meel ka gaadhsiin karayaan si ay maaragtay ula tartami karaya qeyrkii